gudoomiye ku-xigeenka gudida kambeynka xisbiga kulmiye gobolka Togdheer Mustafa Xudun iyo xubno kale oo kamid ah gudidaasi ayaa xadhiga ka jaray saddex xafiis oo bulshada xaafada Qoyardega ee magaalada Burco ugu fureen xisbiga kulmiye mas'uuliyiinta gacanta ku haya iyo mas'uuliyiinta xadhiga ka jaray xafiisyadani ayaa ka waramay muhiimadda ay u leeyihiin xisbiga kulmiye xafiisyadani xaafada Qoyardega anaga sabablay anaga xisbiga taageeray gudidayada iyo maalkayaga iyo muruqayaga baa anaga la garab taagan ciidaba aanayna dalban كيغنا وان لغرب تاغنا aad iyo aad gudidana soo ajirtay nootimi ee xildhibaanada leh naway maatay yihiin boqolkiiba boqol gudoomiyaha gurigan baan ahay annagana xaafada Qoyardega annaga sida yadan soo abaabulnay markii aan aragnay xisbiga munaasibka ku yahay ayaanu annagu kulmiye annaka dooranay xaafaduna aad iyo aad bay u badan tahay dadkuna kulmiye wada doonaya u wada heelayahay xisbiga kulmiye ha guuleysto xisbiga kulmiye ha guuleysto هبوليستو شيخ بشير أما Qoyardega هدانو نهاي وحنو تاغرسني أناغو مصبي وهو dadka digri wala shaqo qof baan ku shaqo kula qof codka waxay u hayaan kulmiye مالكين اللي وعدينا نفتينا نورنا سما موسى بaan ku maanta dadkii reer Qoyardega ee gurigaaga samay ee halkan ugu diyaar garoobay in xisbiga kulmiye ugu halgantaan si fiican baa idinku mahadnaqaynaa waan baahantiin soo dhaweyseen iyo shaqada baahan qabateen waxaan gurigii labaad ee aanu imika ay furno waxa weeyaan waxa leedihiin guriyaha kale baa leedihiin guriyaha kale baa leedihiin aad iyo aad waxa laga rabaa leedika raba maalinta soo bax ina wada muujisaan oo ay soo baxdaan oo wixii u baahataan gaadiidana ana weydiisaan sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam maanta waxaanu ka furaynaa xafiis ay reer Qoyardega iyagu samaysteen oo weyn oo dadkiisa iyo shacbigiisaba wata iyaguna ay gacantooda ku samaysteen wax qarash aan lagu bixin oo si mutadawacnimo ay u furteen ayaynu maanta xadhiga ka jaraynaa hadii Ilaahay ka dhigo aad iyo aad wada ugu mahadsantihiin xaafadda iyo hareeraheeduna wataan ku soo koray Burco inta shacabka iyo Qoyardega imika u bixiseene waa ilaaladii waxa ilaalada la oran jiray weeye inta ay u dhaxaysan ku soo koray waa mahadsantihiin ayaa Xasan Salebaan ayaa la BM TV-ga caalamiga Somali News magaalada Burco.